xeerarka guurka iyo furiinka ee dhammaan diimaha adduunka ka jira ayaan rabaa inaan muuqaalkan iyo muuqaalada xigaba uga hadlo. diinta islaamka, kirishtaanka, hinduuska, buudiga iyo dhammaan diimaha adduunka ka jira annagoo aaminsan diinta kaliya oo saxda ah oo koonkan looga dhaqmo inay tahay diinta islaamka oo kaliya. ma rabo inaan isbarbar dhigo diinta islaamka iyo diimaha kale, laakiin kaliya waxaan rabnaa inaan ogaano xeerarka diimahaas kale ee guurka iyo furiinka. diinta islaamku guurka waxay u aragtaa ballan adag iyo caqdi culus oo buuraha jajabi kara ee ma ahan wax ciyaar ah, laakiin ilaahay ayaana abuuray, asaga ayaana maslaxadeena naga og. haddii ay wada noolaashuhu adkaato oo ay noloshii ciriiri noqoto, wuxuuna siiyey albaab laga baxo kaasoo lagu magacaabo furiin. waad yaaban tahay boosishino kala duwan inaan muuqaalkan ku duubay ayaad aragtaa. taas waxaa kalifay muuqaalka markii aan duubay oo aan dhammeeyey ayuu muuqaalkii shaqay diiday, sidaas darteed waa ku qasbanaaday inaan mar kale duubo. soo dhawaada mar kale saaxiibayaal, muuqaalka like saara, siina sheergareeya, bejkan waayaha dunidana falow dhaha. laakiin albaabkaasu ma ahan mid badda ku furan ee waxaa lagu magacaabaa aqlabul xalaal, shayga xalaasha ah oo uu ilaahay ugu carada badan yahay. maxaa yeelay ilaahay furiinka waa uu necab yahay oo qoys dhan ayaa halkaas ku burburaya. remote controlka qoyska yaa haya. qaacidada asalka ah waxay tahay kelimada furiinka ah inuu ninku hayo oo marka uu doono nolosha bows uu dhihi karo, halkaasna uu ku jooji karo. xigmadda ka dambayda ninka in furiinka loo dhiibana waxay tahay maxaa yeelay ninku asaga ayaa meherkii dhiibaya, asaga ayaa gurigii diyaarinaya, asaga ayuuna ku waajibay masruufkii iyo wax walba oo loo baahan yahay. sidoo kale waxaa jira laba xaaladood oo haweentii ay ninka iska furi karto. way furi kartaa ma ahan ee way iska furi kartaa, qaadiga ayay u tegaysaa, asaga ayaana ka furaya. midda koowaad waxaa lagu magacaabaa khulci. qaadiga ayay u tegaysaa, waxayna leedahay ninkan aslanba ma awoodo inaan la noolaado ee lacagtiina qaata, madaxaygana isiiya. meherkeeda ayay soo celinaysaa iyadoo xorriyaddeeda ku iibsanaysa. qaadiga ayaa ka furaya, iyadoo nadiif ah ayayna halkaas ka baxaysaa. xaaladda labaadna waxaa lagu magacaabaa fasakh. qaadigii ayaa ka fasakhaya haweentii oo ninkii ka furaya. fasakhuna wuxuu ku imaan karaa xaalado badan oo ninka dhankiisa ka imaanaya. waxaa ka mid ah haddii ninkii biilkii uu bixi waayo oo ay dhahdo dhowr sano wax biil ah ima uusan siin, ama ay dhahdo waa uu igaraacaa, ninkan aad ayuu ii ciqaabaa, ama uu yahay nin isticmaala balwad iyo maandooriye wax noocaasa oo ay dhahdo kulama noolaa karo, ama uu yahay nin qaba cillado dhanka raganimada ah iyo waxyaalo noocaasa. adugu xaalado aysan kula noolaa karin haddii ay ku aragto, qaadiga ayay u tegaysaa, waana laga fasakhayaa. wax lacag ahna ma bixinayso ee meherkeeda waa ay ka qaadanaysaa. marka laga soo tago xaaladahaas, ninku asaga ayaa wax fura. 3 dalqadood ayuu haystaa, 3 dalqadoodna hal mar ma dhacdo. dalqada koowaad waxaa la yidhaha rajciyo. haddii uu haweenaydii hal dalqo ku furo, gurigiisa ayay joogaysaa in muddo ah, waa muddada lagu magacaabo ciddada. muddadaas intii lagu guda jiro haddii uu qoomameeyo, wuxuu leeyahay rajactuki, haweentiisina waa uu soo ceshanayaa. dalqad labaad haddii uu ku furo, waa lahjad aad u adag, waa ayna adag tahay in dib dambe la isugu soo laabto. oo dad 2 dalqa isku furay inay wada noolaadaan aad ayay u adkaanaysaa. laakiin midda hore ayay la mid tahay oo haddii ay ciddada ku jirto waa uu soo cesho karaa. laakiin dalqada saddexaad haddii ay dhacdo, bam ayaa halkaas ka qarxay. furiin abadi ah ayaa halkaas ka dhacay. macquulna ma ahan inay mar dambe dib isugu soo laabtaan. hal jaanis oo keliya ayay haystaan. waa haddii haweenaydan uu guursado nin kale ayagoo aan ayagu ku heshiin, ninkaas kale ee iyadu doonto, ikhtiyaarkeedana ay ku guursato, kadibna ama uu ka dhinto ama uu iskiis u furo. guurka diinta islaamku sidaasoo dhan ayuu naxariis u yahay, ikhtiyaari u yahay. diinta masiixiga ama kirishtaanka, guurka ah xabsiga furihiisu lumay, waxay isticmaalaan qaacido la yidhaahdo maa yajmacuhu rabbu maa yufariquhu insaan. waxa uu ilaahay isu keenay insaan ama bini aadan ma kala gey karo. mar haddii aad aqbashid oo aad faraantiga gashatid, lagama yaabo inaad dib dambe uga laabatid. waad iska iloobaysaa oo maskaxdaada ayaad ka tirtiraysaa furiin iyo kala tag iyo waxaas. kaatooligu waa kooxda keliya oo aan qaamuusyadooda iyo qaanuunkooda laga helin furiin ama kala tag wax la yidhaahdo. gurigiinnu haddii uu jaxiimo noqdo oo dagaalkii saddexaad ee adduunku uu ka socdo, kiniisaddu waxay idan leedahay dulqaata, waa wax uu ilaahay idiin qoray, waa qadar. haddii aad isku baaba'daan oo bahashu barakamaley gaarto, waxaa jira waxay isticmaalaan oo ay u yaqaanaan at-tafriiquljasadiyu. waa laydin kala wadayaa, qof walbana guri gooniya ayuu ku noolaanayaa calashaan si aadnan isu gowricin. laakiin waad iska iloobaysaa wax la yidhaahdo jacayl kale ama guur kale. haddii uu midkood jacayl ama guur samaysto, waxaa loo yaqaanaa qof zaani ah oo naxariista ilaahay laga dheereeyey. laakiin bini aadamku waa kuwo caqli badan oo marna xal ma waayaan. waxaa jira waxa ay isticmaalaan marka ugu dambayda oo la idin kala cabsado oo ay ku magacaabaan budlaanu zawaaj.
guurkii oo dhanba in la burburiyo. kaniisadda ayaa waxay leedahay yaa jamaaca waxaan markii horeba guur ma uusan ahayn, aas-aaskiisi ayaa qaldanaa, waxaana laga soo qaadayaa markii aad guurkan bilaabaysay inaad ahayd qof la qasbay ama qof uusan caqligiisu joogin. guurkaana waxaan ka soo qaadaynaa wax aanba hore u dhicin, wixii hore oo dhan waa la iska iloobayaa, labadii qofna halkaas ayaa lagu kala wadayaa.